كمدة أنغو رادينينا متعة راحو أنغو هلكا كسو رادينين هناك تعلمنا فنون الزنا والاحتيال هلكا ساوحانو كسو براني بيقول قيبها الزنا دا أيو قيب سنتو إيو قيبها مارت خيانة دا إيو وحو صدوم بانو سو براني waxaanu safarka dheer aan ku jiri jirnay bilo dhan baanu maqnaan jirnay oo wadanka tumasho aan u aadi jirnay hadii xooluhu naga dhamaadaan reerka ayaanu la soo xiriiri jirnay waa anaga oo waliba markaas aan hagaagsanayn oo deecabsan ayaan soo hadlaynaa waxaan ka dalbi jirnay ka codsan jirnay inay wax kale noo soo diraan markii si aan u soo laabano oo u nimaadno markii xoolaha kale na soo gaaraan waxaan ku sii darsan jirnay buuri tigidka soo noqoshada si aan u sii joodna halka وفي مرة من المرات مالين مالمها كميدة ayaa waxaanu kireysanay buu baabuur taxi baan qaadanay waxaan aadnay meelaha tumashada khamrada muusiqada raqsiga lagu hayo ayaanu tagnay halkaas tumashada habeenkii annaga oo khamradii wuxuu yiri halkaas ku cabayna ayaa mid naga mid aha saaxiibadayaba naga tagay wuxuu yiri wax yar kadib waan idin soo noqon doonaa madati saacaat walam yarji saacado badan baa socday mana una soo laabanin waan soo baxnay anagoo raadinayna hadii aan raadinay muddo kadib waxaan helay waqad sadaqa wa saqada wa hawa bi siyarati min makan murtafi' wa mata ala ashna ihal ninkii oo baabuurkii meel kala dhacay uu cabsana oo xaaladii ugu xumeed ku dhintay baan u tagnay waan ooynay waan murugoonay waxaan u soo noqonay wadankayagii laba bilood oo hadii ay na dhaaftay hadana waxaan u laabanay meeshii ahayd wuxuu yiri lam akun amliku maalan wala dakhla shahriyan wax wala amaanan haysanin wax lacag oo soo gasho shaqaana ma haysanin waxaan taxamulay ahli kayga reerkaygu dayn badan bay ii qaadeen oo aniga dartay ay u soo qaadeen aniguna nimankaas kale ee saaxiibaday baan u qaaday oo iga xoolo badnaa waxaan u arkayay inay tahay karam iyo juud deeqsinimo inaan maarta xoolaha soo daynsado duyuuntii baan koraan kortay oo aad baan u daymownay xaaladayadiina waa xumaatay waxaa dhacay asxaabtaydii markay aniga wax la'aan igu dhacay inay iga wada tagaan waxay aadeen inay safraan ee wadankii xuma u laabtaan anigana ay iga qarsadaan buu waxaan laakiin bartay haddana asxaab kale iyo saaxiibo kale laakiin macal asaf kuwa kale naftoodu kama fiicnayn kuwii hore walam yakunu bi ahsani halin minhum waxaan urursaday buu xoolo waxaana safray ana wa iyahum ma'a ibn ammi li ma'a majmu'ati ila baladin asawiy mashhur bil majun wal fasad aniga iyo koox kale cusub ayaa waxaan u safarnay wadamada Aasiya kamida oo lagu yaqaan buu yiri waxyaabaha la yiraahdo fisqiga fasad al akhlaq وبعد يومين من وصولنا لو مالمود او كليئه هدانو ودنكي تغني ابن عمكي الى السعودون الماديركا ahayn ayaa wuxuu yiri niyo anu waan laabanaya maxaa jiraan ku yiri wuxuu yiri innahu ii sheegay ra'a fil manam anna an-nas fi hadhihi al-bilad yahtariqun wuxuu yiri aniga riyo waxaan ku arkay dadka wadankan degan way guban doonaan واتاني رجل شديد البياض بريده يغو يمد من درع العقبه وحو يغو يري ارجع قبل ان تحترق معهم نيو اورد لابو انت هذا لا غبنين دد كان دخدود انت هذا غبن لابو فرجعت وان سو لابتي بيقول مع ابن عمي انا ان ايرك انا وان سو عرى وحو يران وا لابن انا وان كراعي فمكثت في البيت كوريغي بان كو سو لابتي بلا مال ولا اصحاب وأصابني من الهم والحزن والضيق ما الله به عليم حول ما هيو سفرك وكبحي أصحاب ما هيو ولا سو تجي حزن يمرق باي ودعدي في يوم من الأيام مال مالمها كميدة جاءتني أمي باكية أنا أقول لك إسكت أحفظي هو يدي أوي سايتمد وين إلى هذا الشيء وعيتري لماذا لا تصلي لماذا لا ترجع إلى الله واليوم حد تكلم هذا واليوم حد إلهي وصل الله بالله وأعطتني شريطا عجلت بإسيسي مرك عجلت أي إسيسي waxay ku dhaaratay
inaan cajalada aan dhageysto yani dhaar waxaan ku dhaaran bay tiri